الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد الورى صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والآخرة خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولا ليال رب سبحانه وتعالى كتاب كيسا وحي نقول يهي jannada tilmaanteedu loo diyaariyay kuwa muttaqiinta ah rabbi ka cabsaday waxaa hoos qulqulaya min taxtiha al-anhaar guryaha ku dhisan iyo geedaha ku dhisan hoostooda waxaa qulqulaya wabiyaalkii afarta ahaa. wuxuu rabbi yidhi ukuluhaa daa'im wa dhilluhaa harkeedu waa daa'im, cuntadeedu waa daa'im, cabitaankeedu waa daa'im, caafimaad qabkeedu waa daa'im. waxa weeye waa meesha rabbi subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayay wax mee cuyuub oo dhan way ka badbaado way ka nabadgashay jannadu. janno waxaa sharaf ugu filan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waalaakhiratu khayrun wa abqaa liladiina aamanuu. aakhiro ayaa u wanaagsan oo u karaamo badan oo u fiican oo u baaqinimo badan akhyaarta iimaanka laga helay rabbigoodna tala saaranaya. janno waxaa laga helaa 7 shay oon adduunka laga helaynin. kow waxaa laga helaa xayaatun daa'imatun kaamilatun baaqiyatun mustamira, nolol daa'imah oo geeri ayna ka dambaynin, nolol dhammaystiran, nolol baaqiyahoo weligeed jiraysaa, nolol mustamirahoo isdaba joogto oo waxaa weeye ayna geeriba ka dambaynin baa laga helayaa. waxaa laga helayaa shabaabun daa'im, dhallinyaranimo daa'ima. ehlu jannaha dhammaan waa 33 jir rag iyo dumarba. waxaa laga helayaa sixatun daa'imatun baaqiyatun mustamira, caafimaad qab daa'ima oo xanuun una ka dambaynin. waxaa weeye xanuunka noocyihiisa kala duwan oo dhan ku adag iyo ku jilicsan midna aakhiro laga heli maayo, jannada kuma dhex jiro. waxaa laga helayaa nicamun daa'im, barwaaqooyin daa'ima oo iyaduna mustamiro isdaba joogto oon kala go'aynin. ehluhu jannaha dhammaan dheerarkoodu waa ka tuuli aadama 60 diraacan weeye. 70 waxaa weeye dhudhun 60 dhudhun sida nebiyullaahi aadam waxa weeye dheerarkiisii oo kale. cumruhum ka cumri ciisa, cumrigoodu waa da'dii ciise oo kale oo waa 30 jir. markii adduunka laga rafcinaya dhulka ee samada loo rafcinayay da'dii uu jiray oo 30 jir ayuu dhammaan ehlu jannuhu ahaanaya. jamaaluhum ka jamaali yuusuf calayhi salaam, quruxda ehlu jannuhu waa nebiyullaahi yuusuf quruxdiisii oo kale oo waa nisfu jamaali dunyaa. adduunyada quruxda markii 2 meelood loo qaybiyo hal meela ayaa ruux walba ehlu jannaha la siinayaa. qalbuhum ka qalbi ayuub calayhi salaam, waa qalbi saliima oo caafimaad qaba weeye. qalbigoodu waa sidii ayuub qalbigiisii oo kale. akhlaaqda ehlu jannuhu ka akhlaaqi nebiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam, nebiyullaahi muxamed akhlaaqdiisii oo kale ayaa ehlu jannaha dhammaan la siinayaa. wanasacnaa maa fii suduurihim min ghillin ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. rasuulkana wa innaka la calaa khuluqin cadiim, dabeecadda cadiimka uu rabbi ku tilmaamay ayaa ruux walbo ehlu janno a la siinayaa baa la leeyahay. wa fiiha maa tashtahiihi al-anfus wa taladu al-acyun wa antum fiihaa khaaliduun. jannada waxaa ku sugan wax alla waxay nafi doonto ay ilna ku qabowsato ayaa jannada ku sugan, wayna ku waarayaan ehlu jannuhoo jannada oo kama baxayaan, weligood kama baxayaan. laa yabquuna canhaa xiwala. waxa weeye allaha inagu anfaco jannadaana kuwii alle uu geliyo jannatulfirdows alaclaa allahayna geliyo. walaalayaal adduunka aynu ka sahay qaadanna watasawaduu
فإن خير الزاد التقوى أبو ربي سبحانه وتعالى وليه. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.